السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa macalin maxamuud cashkan waxaynu ku baran doonaa 10 eray haatan sabuuro toddoba noo saaran kuwa kalena waynu ku dari doonaa markaynu toddobadan dhamaan insha Allah eray koowaad waa inquisitive. Inquisitive waa qof markuu su'aalo fara badan ku weydiinayo uuna rabo inuu macluumaad helo ama wax kan wax ka ogaado. Yani this person is curious. Curious iyo inquisitive waa isku macno inuu wax ogaado rabo. su'aal buu nakan ka keenay su'aal kale ku weydiin Soomaaliyeed qofkaas ayaa yiraahdaa inquisitive. erayga labaad waa indigestion. Indigestion waxaa la yiraahdaa laabjeex. su'aal marka cuntadii oo kulul inay kugu soo laabato ayaa la yiraahdaa indigestion. laabjeex waxaa kaloo la yiraahdaa heartburn. Yes, heartburn iyo indigestion waa isku macno waa laabjeex. Ironing board dharka markii aad feereysanaysid waxaa la isticmaalaa miis yar oo dharka lagu dul feereysto. Ironing waa markaa dharka feereysanaysid. I am ironing my shirt. Shirtigan feereysanaya. Ironing board waa miiska la isticmaalo oo dharka lagu dul feereysto. Yes, waa miis yar oo dharka lagu dul feereysto. erayga afraad jar waxaa la yiraahdaa container inta badan glass ka samaysan oo wax lagu dhex rito. Yes, adigu waa container weel ka samaysan glass. A container that is made up of glass waxna lagu kaysado ayaa la yiraahdaa jar. erayga shanaad waa javelin. ciyaar waxaa jirto waran la turturo high schoolka ku ciyaari jirnay. adigu waran baa la tuuray qofka ugu tuurmada dheer ayaana ku guuleysanay. ciyaartaas la yiraahdaa javelin. People that throw in spear ayaa la yiraahdaa waran. Yes, waranka taqaani caadiga ah. erayga lixaad waa jet lag waxaa la isticmaalaa markii aad safar diyaarada soo gashay aadna aad u daalantahay. Yes, qofkan diyaarad buu ku soo safray waana u daalan yahay soo wuxuu ku leeyahay I am a bit jet lag or I'm feeling jet lag. Yani daal baa ay hayo safarka darteed. erayga toddobaad u dambeeyo jockey waxaa weeye qofka yani tartanka fardaha ka faraska wada yani tartamayaasha kamid ayaa la yiraahdaa jockey. He is the rider. Yes, so jockey waxaa la yiraahdaa qofka faraska wada ciyaarta tartanka fardaha. I hope you understand. So waa tirtirayaa saddex eray kala ku darayaa. erayga saddexaad ee cashkan ku qaadanayno waa jug waa garaafo ama jeeg caadiga ah meesha la qabta lahaa waxna lagu shubto ama caano ku shubo ama wax kale ku shubo daartid kaas ayaa la yiraahdaa jug. af Soomaaliya jeeg baa la yiraahdaa dadkaana garaafe iska dhahan. So jeeg. erayga sagaalaad waa Nikes waxaa loo isticmaalaa dhalinyaro yani underwear dumarka. Underwear waxaa la yiraahdaa dharka hoos laga xirto. Underwear ama kastuuma ha ahaato ama garan iyo waxaa noocaas kuwaas la yiraahdaa underwear. Nikes waa underwear dumarka ama bra ha ahaato ama dhamaantood. Yes, erayga tobnaad u dambeeyo knockout. eraygan waxaa loo isticmaalaa inta badan ciyaaraha boxing. Yes, knockout waxaa la yiraahdaa qofka markii wax ku dhacaan and then that person becomes unconscious. markuu qofka miir dabool unconscious waa miir daboolan qofka miirkii inuu ka tago ama inuu suuxo. Yes, so fear baa lagu dhufanayaa ciyaaryahankii and then hal mar uu miir daboolmaya they become unconscious. so waxaa maqlaysaa he was knocked out. istaaga laga riday.